الله الرحمن الرحيم waxaan maanta magaalada Garowe ku soo dhaweynay fanaaniinta qaaliga Sharma Boy iyo Maslax Mideeye waxa ay u warami doonaan TV-ga dawladda waxaana uga warami doonaan socdaalkooda ku aadan soo gaadida magaalada Garowe waxaan ku barayaa Sharma Boy soo dhaw Sharma Boy aad baan u dhawahay horta aad waxaan ugu faraxsanahay inaan dhulkayga joogo weliba khaasatan ahaan maamulkayga aan adduunka ugu jeclaa meesha la iga beeray meeshaan ka imid reer aabbahay baan joogaa aad waxaan ugu sii faraxsanahay maanta in badanna aan rajeynayay anoo aan fan ahaynoo Puntland joogo inaan ka soo muuqdo TV-ga Puntland TV maantana aad baa ugu faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo in aan ka soo muuqdo TV-ga Puntland iyadoo ay tahay Garowe iyo Puntland oo dhan magaalooyinkaagii iyo deegaankaagii oo adoon u baahnayn in laga hor imaado lagu soo dhaweeyo nin walba gurigiisa dee lagu soo dhaweeyo haddana Sharma socdaalkaagu maxaa uu ku aadan yahay horta aniga ay maslax socdaalkeena wuxuu ku aadan yahay reer Puntland waxa waaye anagu YouTuberna waa lahay YouTuberna waa leenahay xaqiiqda markii laga hadlo horta fankeena kuma soo koobna maamulkan ka soo jeedno horta maslax wuxuu ka soo jeedaa Djibouti anna waxaan ka soo jeedaa maamul ahaan markii la dhaho Puntland oo wiil Puntland ahay xaqiiqda markii laga hadlo waxa waaye cidna uma marti wiil harti waxa waaye haddii aan joogo Puntland haddii iska cadahay Soomaali Maxamed qabiil loo fahmin hadda barnaamijka ku soo baxnaa wuxuu yahay maamul goboleedyada oo dhan inaan isku barno aad Puntland aad Galmudug aad Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle qorsheena wuxuu yahay ugu weyn in aan maamulada Soomaaliyeed oo dhan isku soo marno maadaama ay joogaan faniskeena asxaabteena walaalaheena dhalinyaradeenna dhiigga Soomaaliyeed laakiin waxaan ka bilaabeynaa insha Allah hadda oo aan ku sugannahay Puntland khaasatan Garowe waxa inoogu xigi doonto insha Allah maslaxa noo sheegay ay maslax intaan adiga ka arkin waxa rabaa hees waxa jira markii aad soo socdaalayeen aad Puntland la soo qaateen oo xalaydan badaawaha laga soo qaaday laba eray heesta kamid waxaan kamid ah kuwa la iga beeray Puntland barta la iga keenay Puntland waanu baqayaa reer aabbahay ku dheeha u bixin bugaanka la socdaa waanu baqayaa reer aabbahay ku dheeha u bixin bugaanka la socdaa iga badan Puntland wallahi inaga badan Puntland billahi waanu dhiman Puntland oo talaahi boqortooyadeeni Puntland yaa wax ka bedeli karo aadi markaa waxaan ilaaliyaa maslaxa uu ku soo dhaweynaya Garowe iyo Puntland iyada ay deegaankaaga tahay oo aad Sharma Boy la socoto marka ugu horeysa soo dhawow barnaamijkaaga adigu la socdaalkaaga horta wallahi waxa waaye horta aad u faraxsanahay aniga oo dhulkaygii hooyo jooga baan in badan ku rajayn jiray inaan dhulka Soomaaliya soo dabaro macnaheedu aan gobol iyo degmo aado horta waan ku faraxsanahay inteeda ugu badan hadda waa fuliyay maantana Puntland alxamdulillah waxa waaye dad badan aan dhaama maanta dhulkina waxaan dhul mareen oo dhul badan qasay horta ari Sharma waxa ku heshinaa idin sheegay dadka badan waxay isweydiiyaan maslax iyo Sharma maxay ku heshiiyeen horta inagu dhalinyar bayna nahay wax aan mar walba u soconaa inaan waa dhalinyarta inaan mideyno inaynu ka dhex saarno afaaraha qabiilka inaynu ka dhex saarno afaaraha siyaasadda in aynu isku keenno ummadda la kala xidhay ee xuduudada loo kala yeeshay ee dhalinyarta ah ee qalbigoodu nadiif yahay inaynu aan mar walba anagu aan gaano wariyada walaalaanahay in aynu madadaalino in aynu ka saarno qalbigooda xumaanta lagu shubayo iyo qabyaalada lagu shubayo horta mar walba horta nagu daali mayno waxa waaye qaar baa nagu soo weerari doona isu keendiri doona qaar baa qabiil nagu soo weerari doona qaar baa wajideena ka xumaan doona oo macnaheedu iyagu jecel cunsurinimada iyo macnaheedu xumaanta jecel waxa ma qaadi karaa marka laga reebo Rabbi subhanahu wa ta'ala inuu kalmoodka marka hal qof iyo laba maaha dad badan ay jiro macnaheedu waxaas jecel laakiin anagu waxaan leenahay ka joogsanaa ka socda social media waxaas horta waxaas waxa weeye wax ku jiraan waaye fanaanina waa si aad la fiirino waxay ka jiraan ma yasaas ma waxa qabada marka qofku magac leeyahay xagga dagaalkii maraya hadda marka marka laga hadlo horta dagaal social media YouTube kaas aan leeyahay aniga subscribe wuxuu marayaa 320 iyo 220 waxaan rajeynayaa inuu 320 wuxuu ku gaaray 2 bilood gudahooda insha Allah Soomaaliya gaarsiiso aniga subscribe kaas gaarsiinay xaqiiqatan waxaan rajeynayaa qof wax ka bedeli karta ma
dad badan oo kusoo cagajugleeyay waxaa la sheegay in heeso laga dad badan waxay kusoo cagajugleeyeen inay annaga macnaha fanka iyo maxaa la yidhaha ama saxada YouTube oo dhan ama social media intaan markaas soo gabagabayno waxaa waaye dhalinyarta la hadlaya amana jeclaada amana necbaada waxaa waaye meesha galmudug aan nooga xigto horta Puntland macnaha Puntland waxaan nooga xigto galmudug aan tageynaa shawiyaad la qabanaysa shawiyo waliba